warahmatullahi wabarakatuh. mudane madaxweyne waa u jeedaa maanta in ay tahay maalin kale weyn oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo maamulkiisa iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada sida ay u garteen in loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo waxbarashada dadweynaha oo muhiim u ah kana mid ahayd madaxweyne ballanqaadka hore u ballanqaaday in aad bulshada u dhowaanayso u adeegayso iyagana u taagan tahay tanna waxay ka mid tahay arrin kale oo na tusaysa sida dalku horumar u gaarayo maalinta ka dambaysa maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada muddo ayay ka wada shaqaynayeen sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka gaar ahaan waxbarashada caasimadda maanta dadkan u jeedo waa ardaydii waa mustaqbalkii berri waa dadkii la rabay inay dalkan badbaadiyaan waxna u bartaan marka maanta in fursaddan aad siiso hor timaado wakhtigaa qaaligana aad siiso runtii sharaf weyn bay noo tahay sidoo kale mudane madaxweyne aragtidaadii dheer ee ahayd isxilqaan in dalkan si isxilqaannimo ah qof walba kaalintiisa uu ka qaato tani waxay ka mid tahay qayb ka mid ah qaybtaas wasaaradda waxbarashada iyadana ka shaqaynaysay mashruuci bar ama baro in maanta 24 iskuul ay gacantii dawladda ay ku soo wareegto oo iskuulladaas ay noqdaan iskuulo dadweyne oo macallimiintii iyo ardaydiiba la kafaalo qaado taasna aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dawladda federaalka waana waxa loo taagan yahay bulshada si loogu dhowaado loogu adeego waxyaalaha aasaasiga u ah waxaa ka mid ah waxbarashada marka mudane madaxweyne aad iyo aad baan aragtidaas dheer kaaga mahad celinaynaa maamulka gobolka banaadir isagoo ka duulayo baaqaagii wuxuu bilaabay barnaamijka isxilqaan ha noqoto nadaafaddii ha noqoto goobihii argagixisada naga burburiyeen inaan ku dhisanno ha noqoto inaan u istaagno dalkan si loo gaaro horumari barwaaqo intaas ka sokow horumarka jira mudane madaxweyne dad waxaa jira aan u jeedin dad waxaa jira dibadaha ka qaqayliya waxaa jira qaswade baxsad ah shisheeye gabaad u noqday dana shisheeye ku adeegaya maalin wal bannaanka inuu ka qayliyo horumarkaana uusan arkin kama yeelayno shacabkan waxay mar walba u taagan yihiin in horumarka dalka ka jira uu yahay mid mar walbaba hore in loo sii wado ay tahay horena u sii socdo ugu dambayntii waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo wasiirka iyo wasaaradda waxbarashada barnaamijkan qiimaha iqaayaha leh waxaan rajaynaynaa qof kastoo muwaadin soomaaliyeed ah inuu ka faa'iidaysto ama uu wax barto ama uu wax baro haddaana annaga isku tashanin cid dibadda nooga imaanaysana ma jirto aad iyo aad aan u mahadsantahay mudane madaxweyne wasalaamu calaykum waraxmatullahi